soomaalidu lixdankii markay guulaysatay bal kaalay canabey bay bilaabeen inay ku heesaan waa markii ilaahay gaalka ka kiciyey idan ama 16 juun ama 1 Juulaay ama 18 ama 21 Oktoobar waxay soo maalin lahaayeen oo dhan isku soo dar kibir bay ka qaadeen waxay maalin lahaayeen oo dhan kibir bay ka qaadeen halka ay ahayd haddii ay wax heleen inay ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadnaqaan wuxuu nabigu soo galay maka wuxuu soo galay nabigu isagoo neef geela fuushan oo miqfarkiisii koofiyadiisii dagaalka sita oo cumaamad madow duuban laakiin sideeya ma isagoo le badhbadhaan oo guulaysan oo gaaladii waa jabinay maya wuxuu soo galay nabigu calayhi salaatu wasalaam neefku fuushanaa raxligii saaraa raxligu waa koorihii iyo wixii neefka dushiisa saaraa isagoo gadhkiisa uu gaadhayo ilaahay subxaanahu wa tacaala u khuduucaya oo sujuudayo gadhkiisu halkaasi gaadhayo oo mutakhashica khushuucsan buu soo galay kelmaddan caawa ka hadlaya marka waa kelmad nasiixa ah caamada waddanka degan ee muslimiinta ah iyo maamulka iyo madaxda joogtaba u ah maalinta ay dadku yidhaahdaan maalinta waطaniga ah alاxtifaal biاlyowmi اlwaطani in loo dabaaldego ama la maamuuso maalinta waddanka cid waliba maalin bay sheegataa ay maalmaha kale ka calaamadsatay ama maalin xorriyadeed ha la yidhaahdo ama maalin nicmo kale la helay ha la yidhaahdo wixii la doonaha lagu calaamadiyo maalmaa la calaamadsadaa dabeetana ixtifaal dabaaldeg bay dadku sameeyaan dabaaldegga maalmahaasi ma bannaan yahay diintu ma ku dhawaaqaysaa mise ma bannaana culammadu laba qowl bay ka leeyihiin intaanan labadooda qowl soo bandhigin waxaan rabaa sideedaba inaan tilmaamo nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu yeeli jiray isagu ilaan isba maalmo uu guulaystay maalmo uu dagaalla ku guulaystay maalmo uu dowlada ka guulaystay maalmo badan baa soo maray maalmahaasi siduu nebi maxamed ula dhaqmay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa في سورة إبراهيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن اخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إلهي وحليه سبحانه وتعالى نبي موسى آيات كيجي كصادر وحلو صادر وحكم إذا أن اخرج قومك من الظلمات إلى النور تلقى madowgiyo mugdiga ka saar oo iftiinka gee wadakirhum biayaami illaahi baa la yidhi maalmaha ilaahayna ku waani maalmo aada jabtay maalmo lagaa xoog batay maalmo aada xoog badatay maalmo aada abaarsatay maalmo aada nicmaysatay maalmo badan oo nolosha ka mid a ku soo maraya ilaahay wuxuu ku yidhi nebi muuse wadakirhum xasuusi oo ku waani ilaahay maalmihiisa إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور دبتنا إلهي وحي نوشة مالمه ونبي موسى دتك كواني وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون وحوق بلا بمركة وهذا حستان با إلهي مركو نبي موسى تلك كيري ور إلهي النعمة دي حصوصتا إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم مركي إلهي وفرعون يقوم كسيدي كبد بادية إذن نلش مال ميلادي مال مها سيال ولا نغمة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مال ما بدن بصومري waxaa soo maray maalmo uu guulaystay beder baa soo martay oo iyagoo yar oo tiro yar oo gaalo ka xoog badani ku soo duushay
kun nin oo hubkooda u dhan yahay dhowr boqoloo neef wata farda wata awr wata wax walba wata iyo saxaabaan dagaalba kusoo talagelinay 310 qof ah laba faras oo qura fuushan waxba aan dagaal ku talagelin inay safar meel maraya soo qabtaan kusoo talagalay ilaahi subxaanahu wa tacaala waa uga guuleeyey siduu nebi maxamed u xusay maalintaa waxaa soo martay yowmul axzaab waa maalin gaaloo dhammi isu urursatay gaaladii gudaha ku jirta oo yuhuud lahayd kuwii ay ishayeen quraysh ahaa kuwo kaloo ay soo duufsadeen oo qatafaan iyo qabaa'il kale ah iyadoo la yidhaahda magaalada madiinaba markaa dadka deganay 3,000 oo qof buu gaadhayay ayaa 10,000 oo ciidani soo weerartay ilaahay markuu tilmaamayo qur-aanka wuxuu ku tilmaamay in zilzaal u dhacay dhul gariir inay ku noqotay qalbi gariir baa dhacay إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا إلهي كنت المامي وحصامري يوم الحديبية وإلهي سبحانه وتعالى وهيلي وحصامري فتح مكة ومالتي كبوليستين قالت شبيين مالتي قالت يقويني شبيين بيت الله الحرام قبصدين way ka safeeyeen dhowr boqol oo sano oo meesha dhex yaalay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam soo galay sida xadiidka bukhaari sheegayo isagoo akhrinaya innaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyagfira laka allahu maa taqadama min dembika aayaadkaas ama aayaad min suurati alfatxi ka mid ah isagoo nabigu akhrinaya calayhi salaatu wasalaam waxaa soo maalmoo nabiga soo maray maalinna ciid kamuu dhigan maalinuu xooggiisa iyo muruqiisa muujiyo kama dhiganin maalinuu dadka isugu yeedho u yidhaahdo farxa oo boodbooda kama dhiganin saxaabadii muslimiinta ee ka dambeysay waxay furteen dee dunida maanta muslimku ku nooliyaba intooda badan saxaaba furatay waayo ilaa iyo Abu Ayyub al-Ansari dee istaanuu ku aasayay meeshan Istanbul la yidhaahdo ku aasayay xaggana ilaa bariga iyagaa furtay xaggana ilaa galbeedka iyagaa furtay labadii dowladood ee dunida ugu xoogga weynaa ayay midna ka takhalluseen gebigeedba midna ururiyeen maalmo waaweyn baa soo maray maalinna maalmaha ka mid ah oo ghazawaadkii macruufee la yaqaanay maalinna may calaamadsanin taabiciintii ka dambeeyey saasay haayeen سلف الأمة ساسو ودغمي إسلام كوحا لا يقانا يو كلي يمركي عيد يا فرحات يا رين تهي لما ما الموضوع قولا أما هدي لغا مارمي وايو دور ما الموضوع ترسم عيد يا أيام التشريق